Bismillahirrahmanirrahiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka Xogta Media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono baarlamaanka UK waxa ay ka doodayaan maalinimada Berito madax banaanida Somaliland haddaba UK ma waxa uu aqoonsan rabaa Somaliland warbixintan ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doona tafaasiil arrintaasi ku aadan dhaawaca macallimu waxa loo qaadayaa dalka dibadiisa kadib qaraxii shalay lala eegtay agaasimaha kumeel gaarka ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Faray ayaa loo diiday in uu booqdo dhaawaca macallimu oo ku jira isbitaalka Digfaar ee magaalada caasimadda Muqdisho Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooblana halkaas ayuu ku booqday dhaawaca macallimu wafdi uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaaraha ayaa ku booqday isbitaalka Digfaar haddaba weeraradii kala duwanaa ee uu ka badbaaday macallimu ayaa sidoo kale daawadayaal ku soo qaadan doona warbixintan hayeeshee intaanan guda gelin waxaan daawade ka dalbanayaan ka codsanayaan muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka furanaya gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawade muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawade waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena baarlamaanka UK ayaa talaadada beri lagu wadaa in muddo kooban uu dhageysto dood ku saabsan jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland oo uu soo gudbin doono xildhibaan Gavin Williamson oo laga soo doorto koonfurta Staffordshire dooda oo ah mid uu mudanaha ku soo gabagabeyn doono fadhiga maalinta Berito ayaa la filayn in wax go'aan uu ka gaaro baarlamaanka ma aha markii ugu horeysay ee baarlamaanka UK uu dhageysto dood ku aadan aqoonsiga Somaliland oo sheegtay in 1991 ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale bishii December 2019 11 xildhibaan oo u badan xisbiga Labourka ayaa gudbiyay mooshin ah in baarlamaanka UK uu aqoonsado Somaliland maadaama ay ahayd maxmiyad ay Britain xukumi jirtay mid ka mid ah xildhibaanadaasi ayaa markii dambe ka noqday mooshinka sidoo kale golaha deegaanka ee magaalooyinka Cardiff, Sheffield iyo Birmingham ayaa hore u shaaciyay in ay aqoonsan yihiin madax banaanida Somaliland walow taasi aysan wax badan soo kordhin waa kuma xildhibaan Gavin Williamson Gavin ayaa 25 June 1976 ku dhashay magaalada dalxiiska caanka ku ah ee Scarborough ee ku taalla waqooyiga England waxa uu siyaasadda ku biiray sanadkii 2001 xilligaas oo loo doortay golaha deegaankiisa sanadkii 2010 ayuu markii ugu horeysay ku guuleystay in uu baarlamaanka UK ku matalo koonfurta Staffordshire dhamaadkii sanadkii 2017 ayaa waxa loo magacaabay xogayaha difaaca ee UK kadibna waxa uu July 2019 noqday xogayaha waxbarashada waa mudane ka tirsan xisbiga talada haya ee Conservative waxaana uu hadda ka mid yahay xildhibaanada ugu magaca dheer si weyn waxa uu taageeraa qadiyadda gooni-sutaaga ee Somaliland sida ku cad bartiisa Twitterka go'aanka dowladda UK xukuumadda Britain ma aqoonsano gooni-sutaaga Somaliland sida ay marar badan sheegtay Feki Ford oo ah wasiirka UK u qaabilsan arrimaha Afrika ayaa bishii November 2021 sheegtay in UK iyo Somaliland aqoonsan doonto oo kaliya marka ay go'aan noocaas gaaraan Soomaaliya iyo dalalka kale ee Afrikaanka wada hadallo u dhaxeeya Muqdisho iyo Hargeysa oo looga arrinsan lahaa arrinta Somaliland ayaa dhowr jeer dhacay inkastoo aanay wax weyn soo kordhin ma jiro dal ka tirsan caalamka oo 30 sano ee la soo dhaafay wadan madax banaan u aqoonsaday Somaliland markaana daawadayaal hadaynu eegno dhanka kale Yaasiin Faray agaasimaha kumeel gaarka ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa loo diiday in uu booqdo dhaawaca macallimu oo ku jira isbitaalka Digfaar ee magaalada caasimadda Muqdisho sida aan xogta ku helayno isla markaana ay noo xaqiijiyeen ila xogogaala ehelada afayeenka xukuumadda Maxamed Ibrahim Macallimu iyo ilaalada qaabilsan amnigiisa ayaa hor istaagay eedeysana Yaasiin Faray kaas oo isbitaalka Digfaar u tagay booqashada Macallimu eedeysana Yaasiin Faray oo hadda ku magacaaban
xilka agaasimaha ku-meel gaarka ee hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee NISA wuxuu hore u soo ahaa madaxa ilaalada Fahad Yaasiin Xaaji Daahir wuxuu soo noqday shaqsiga ugu sareeyay nabad sugidda gobolka Banaadir xilligii Fahad wuxuuna qayb ka yahay shakhsiyaadka tuhunadu oo dul hoganayaan maadaama dadka qaar gaar ahaan ehelka Maxamed Ibraahim Macalimu rumaysan yihiin in afhayeenka xukuumadda loo beegsaday sabab siyaasadeed oo la xiriirta khilaafka ka dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble isla markaasna Yaasiin Farey ku daaban yahay hoggaanka kooxda la tuunsan yahay ayaa loo diiday booqashada Macalimu. Yaasiin Farey wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka ku eedeysan kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd gabar ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee NISA oo tan iyo 26 Juun 2021 maqane ah taas oo Fahad Yaasiin sheegay in ay dileen dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaasi oo dhankooda iska fogeeyay dilka Ikraan Tahliil Faarax. Dhaawaca Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa maanta la filayaa in loo qaado dalka dibadiisa waxaana xalay isbitaalka Digfaar ee magaalada caasimadda Muqdisho lagu sii baxnaaninayo ku ilaalinaya ilaalo ka socota xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaana isbitaalka ku booqday Macalimu xog ku saabsan xaaladiisa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa saqdii dhexe xalay isbitaalka ku booqday dhaawaca Maxamed Ibraahim Macalimu afhayeenka xukuumadda oo shalay ku dhaawacmay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay isgoyska dabka. Ra'iisul wasaaraha ayaa xaaladiisa caafimaad ka xal wareystay afhayeenka sida lagu sheegay qoraal lagu daawacay barta Facebook ee xafiiska ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaraha ayaa la sheekaystay Macalimu oo xaaladiisa soo hagaagayso waxa uuna eebba uga baryay caafimaad degdeg ah ayaa lagu yiri qoraalka. Ra'iisul wasaaraha ayaa warbixin ka dhageystay dhaqaatiirta daweynaysa afhayeenka xukuumadda ayaa sidoo kale lagu sheegay qoraalkan lagu daawacay xafiiska ra'iisul wasaaraha uu ku leeyahay barta Facebook. Macalimu waxa uu ka jabay lugta waxa kale uu dhaawac ka soo gaaray gacan iyadoo ay jirtay jug xoogan oo xabadka ah oo dhiig ku celisay neeftana ku adkeysay. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media ee aan ku leenahay YouTube-ka muuqaalkan inoo la garay subscribe inoo sar channelka fura gambalka tan iyo warbixintan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu